kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking. waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan, isqurxin iyo waxyaabo kale oo badan. asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. ugu horreyn asxaabtayda waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad ii dhiirigelisaan, comment quruxda badan igu soo qortaan. dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin, kama daalina idin mahad celiyo. waxaan sameysanaynaa asxaabtayda alaab yar oo timaha ah. inta waxaan ku haystaa basal, 3 xabo basal ah. ani 3 xabo sameysanayaa. basasha yiri zaaidna ma ahan, aadna uma waaweyno, dhexdhexaad waaye. 3 xabo oo dhexdhexaad ah. qiyaasta timahaaga ku xiran tahay. haddii timahaaga ay yar yihiin ama ay gaagaaban yihiin, 1 xabo 2 xabo, yani qiyaasta qof walba timaha qiyaasta timihiisa asaa ka warhaay kulli idin tilmaamay. laakiin ani 3 xabo sameysanayaa. 3 xabo basal oo qiyaas ah waaye. basasha waa fiiqanaya, waa soo jaraya, waa soo fiiqaya, waa soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waa soo fiiqday basasha, waan jarjaraya. 3 xabo basal waa soo fiiqday. وين أقول جرت بتاع الملها واشيدايا ما هو لا يقشح بس الشيء كل شيء لا بيجي معنا من جد. حدارة بعد كان كارت الخضار تمر قيسة أم كهوليسة كده بيا كمير نيسة. أيضا صوص لو هجينا ينسوق ليه، لكن هذا تنوى شيء رباني إنها خال مربي بس الشيء عندها. asxaabtayda waa soo jarjaray si waaweyn oo jarjar xataa ma yareeyeen. basasha aad u kulushahay indhahay dadka galaysa. indhaha dhan biyo iga imaada kamarada xataa istaajiyay, wax ma arki karin. xadaarta xoqi kartaa, yani kuleelkeeda nacaya, indhaha iga galaysa. marka la xoqay indhaha dadka ka ilmeysiinaya faanteen waa ogtiin basasha way kulushahay. marka hadda inaan shiidaan rabaa. waxaan kusoo shubayaa blenderga. inta waxaan ku haystaa blenderga. marka waxaan kusoo shubayaa basasha kulliyan kusoo shubayaa. waan kusoo wada shubay. waxaan kusoo darsanayaa. inta waxaan ku haystaa biyo yar, biyo adi halka bacma waaye, aad u yar. basasha ayadaa biyo ah, biyo haysataa, biyo badan haysataa. uma baahna biyo badan inaad ku dartid. biyo la-aan xataa waa shiidi kartaa, laakiin mashiinta blender marka aan ku shiidayaa. marka wax yar biyaan ku shiidayaa, wax yar oo been ah. basashana waatan intaan waaye. waataasa intaas waaye basasha. biyo kusoo daraya. bismillah. kistaas biyo kusoo shiidaya, waa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waa soo shiiday basashi saan waaye, saanay noqotay maasha Allah. waa miiraynaa hadda. bir weynka kusoo shubay waa miirayaa. saan xataa waa ku marsan kartaa, laakiin maxaa la dhahaa, qashinka hodhow timaha ka dhigaya, iska fufujin kartid. timaha hadduu ku qabsado ma kala bixin kartid, dhib waaye. marka inaa iska miirtida iska fiican. waan soo wada miirayaa, waan kasoo dhameynayaa. asxaabtayda waa kan waa soo miiray basashii. waa kaasaa kalarkeeda. waxaan kusoo darsanayaa castor oil. waan kusoo darsanayaa waxyar. bismillah. saliidan castor oil timaha way u fiican tahay maasha Allah.
timaha way bixisaa. asxaabteeda waxaan kusoo daray castor oil, haddana waxaan ku darsanayaa coconut oil, saliidda qumbaha ku darsanayaa. midda gasaca hadda isticmaalaya saliidda qumbaha aniga waa samaystaa marmar, laakiin hadda mid ma ii diyaarsano, tana isticmaalaya oo gasaca. sida loo sameeyo saliidda qumbaha insha Allah waa idin soo gelin doonaa. kaskasa usoo baxaysa saliidda waqti qaadanay, marka wax kusoo daraya insha Allah isku soo qaadanayna. saliidda kusoo daray asxaabteeda, saliidda coconut oil-ka iyo castor oil aan kusoo daray. saliidda qumbaha iyo saliiddan aan kusoo darsaday oo castor oil-ka ah. castor oil-ka timaha aad ugu fiican tahay, iyadana timaha way bixisaa, jajab iyo xasad ka haysto way ku caawinaysaa. sidoo kale cagoolka iyo qolfaha iyadana way u fiican tahay. castor oil kaliya lama marsan karo, inaa wax ku dartid waaye saliid ama waxaan oo kale markaa samaysanaysid inaad ku darsatid waaye, qasatid. marka waa kana saanay diyaar noogu tahay. basashan timaha aad ugu fiican tahay. basasha aniga tijaabiyay, aniga isticmaalay, aniga faa'iido ka helay. ma fahanteen? waxaan faa'iido ka arkin midin soo gelinayo insha Allah. marka waxaan isticmaalay waaye. waxaan kusoo shubayaa caagan. saan kuma marsi karto, waa inaa caag oo wax buufsamaya camal ku shubtid ama suuf. marka caagan waxaa ku shubanaysaa. caag waxaa la rabaa saas u buufsamaayo, waa aragtaa soomaa. timaha intaa kala barbartid aad salka ka marinaysaa. ma ahan waxaa la marinayo timaha, ma ahan salka inaad ka marisid waaye. meesha oo timaha kasoo baxaan maqaarka inaad marisid waaye. timaha waa kala barbaraysaa. suuf baalkan caagan saa u buufsamaayo kala qaadane. qof inuu haduu qof kula joogo qof ku caawiyo oo kugu shushubo. qof haduu kula joogo qof ha ku caawiyo, haduu kula joogin saas oo marsanaysaa. caag saas oo buufine ama waxa soo qaadanay suufa inta soo qaadatid saas u dhex gelinaysaa, madaxa laftiisa saas u marmarinaysaa. hadii timaha ay jajab ama ay meelaha qaar oo timaha ka tageen oo kale way ku soo celinaysaa insha Allah. marka sadaa marsatid wiigiiba 2 maalin 3 maalin inaad marsatid waaye ugu yaraan. marka dhowr bilood wadid kadib aad natiijada arkaysaa. ma ahan inaa hal mar marsataa dhahdo waxba ima tirin ka tagtid, ma ahan. marka insha Allah ragga badaarta la xataa way ku jiraan, damarka bas ma ahan. ragga badaarta la xataa ka faa'iideystaan insha Allah. sidoo kale timaha markaa marisid xoogaa ku joogaysaa. adiga ugu yaraan 1 saac inaad ku joogtid, 2 saac 3 saac si aad waqti u heli kartid. markaas kadib shaambaa ku dhaqaysaa. shaambada markii aad ku dhaqdid nafaqada guriga ku taalo, treatmentii guriga ku yaala marsanee madaxa. marka nafaqada marsatid biyo isaga raacinay. marka hore ka markaa marsatid aad xoogaa ku joogtid, shaambaa ku dhaqaysaa. shaambada markaa ku dhaqdid kadib nafaqada guriga ku taalo, treatmentii oo timaha waa marsanaysaa, kadib biyo isaga raacinaysaa. ugu yaraan 1 saac inaad ku joogtid fiican markaa marsatid. marka salka ka marisid oo ku shanleynaya timaha. madaxa salka markuu ka qoyo waa ku shanleynaya. marka timaha waa ku shanleynaya. marka ku shanleysid timaha iyaga wada gaaraya Soomaaliya. marka hadii ay tahay hadii guriga lagu joogo inaad xijaabad daruuri ay tahay inaad xijaabatid, bacdaas oo showerka qaadanay waa ku xiraysaa. yacni guriga hadii qof aad ka xijaabanayso uu joogo oo daruuri ay tahay inaad xijaabatid, bacdaas ku xiraysaa. kadibna xijaabka xiranaysaa. inta saacad aad ku joogaysid aad ku joogaysaa. marka hadii oo qof guriga yacni aad ka xijaabanayso joogin, dhib ma lahan, ha iskaga xirin bacda. because bacda markaa madax ku xirtid kuleylaa madaxa ka soo baxay, kuleylka soo dhawaada kugu noqonaa. hadii ay daruuri tahay inaad xijaabatid bacdaas waa ku xiran kartaa. laakiin hadii oo guriga kaliya iska joogtid ama qof ka xijaabanayso uusan joogin, caadi waa saas oo kale waa marsanay timaha intaad joogtid
masarkaaga xiranaysa ama wixii markaas aad xijaabkaaga xiranaysa insha Allah ka faa'iideysta asxaabteeda qaaliga